aqooyahan Axmed Aadan Daahir oo musharax u taagan golaha deegaanka Boorame kana sharaxan xisbiga mucaaridka Wicid astaantiisa cuduntiisuna ay tahay 101 ama 101 oo maalmihii u dambeeyay soo bandhigay cududu taageero ku leeyahay magaalada Boorame ayaa maanta oo liisa ka bilaabay Sariimada Axmed Guri ee magaalada Boorame halkaas oo ku booqday hooyooyinka ku ganacsada sariimadaasi isagoo u kurgaliyay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin iyo waliba xaaladda nadaafadeed ay ku sugan tahay sariimada hilibka ee Axmed Guri waxaana musharax halkaas si baan ugu soo dhaweeyay hooyooyinka ku ganacsada sariimadaasi isagoo halkaas xildhibaanku indhiisa ku soo arkay xaaladda ay ku sugan yihiin hooyooyinkaasi waxaana ugu markaas ka hadlay isbaartana soo dhaweeyay booqashada uu tagay qaar ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada sariimada Axmed Guri waxaana ay tilmaameen halkan waa sariimada Axmed Guri waxaana haysta dad dhulcun leeyahay dhulcun waxa la waxay noo qabtaan ma jirto haddaan ka hadalana dawladda Soomaaliya nagu soo diraya waxa weeye 6 qof anaga simiradaba ay u xidhan tahay 6 qof waxay qaataan maalintii biday waxay naga qaadan calaamiis 5,000 shilin biyo kuma qabna 4 jeer ay kaaro iyala noogu masaxay simirada inta leeg waxaan ku dhimanay weeye ka xanuunada nimka socdana Allah badan naga badbaadiye waxa weeye biyo halkan ku jiraan oo haddii fawba noo dhistay haday noo dhistay biyo wala naga xidhay caaradii waatan oo say waqtay wadiga arkaya maxay adanay biyo la'aan ku qabnaa lacag la naguma soo celiyo la nooma dhisin xataa xerada dib u habeen laguma sameyn muulashiin kan iska oodnay oo jiingada iska saarnay anagu waxa weeye qolooyinka ay u xidhan tahay in la naga qabtaan doonin waxa weeye hooyo Ilaahay ku guuleeyo kii soo baxa Allah ka dhigo anagu u cudiyo kulmiya iyo wadani midna ma diidayna waa wada walaalahayo oo midna ma diid laakiin baahida halkan taala in la nala arko oo la naga qabto qolooyinka sida noo cadaadinaya iyaan doonaynaa hooyo intaas kadib waxa ka kala hadlay hooyooyinka ku ganacsada sariimada Axmed Guri musharax golo deegaan Axmed Aadan Daahir halkan waa sariimadii Axmed Guri waa halkii hilibka lagu iibinayay waxa sariimadan mar hore la dhisay waad arkaysaan maxay way hagaagoon tahay oo xaqi dusha way ka hagaagoon tahay laakiinse waxa dayaca ka muuqda wax weeyaan waa nadaafad daro dawladda hoosana cashuurta way ka qaadaa waxa allaale wax nadaafadooda laga hagaajinay way yartahay waad arkaysaa dumarku walka cabanayaan waxaan isku sharaxaynaa baahida taalaan arkaya waxaan jecelahay hadduu Ilaahay igu guuleeyo inaan meesha awood saaro meesha nadaafad leh oo muuqata oo hooyo kastaba ciil baxday inaad aragtaan baan jecelahay hadduu Ilaahay meesha igu guuleeyo waxaan rajaynayaa inaan had dhammaan wala gaadho sameeyo oo waxa cashuurtooda laga qaaday dib ugu celiyo anigu waxa laalo waxaan ka rabaa ma jirto halkan hooyooyinkayba jooga dhammaan mid aanan garanayn ma jirto damiirkayga ay damqaya inaan dadkayga wax u qabto baan isku sharaxay baahi kale oo ii haysay ma jirin Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu igu guuleeyo oo baahida dumarku ay caabanayaan inaan haqabtiro kadiskeen nii soo booqday wax kale niima soo booqan anigu waxaan u sharaxanahay degmada Boorame aan u sharaxanahay waxaan rajaynayaa inaan xildhibaan noqdo hadduu Allah igu simo waxaan rabaa codkiina rabaa waxaan u rabaa mar raba inaan meesha wax ka qabsado inaan ininka wax inii qabtaan rabaa waad agtiin mar kasta cashuur baan laga qaadaa cashuurta cid wax inagu soo celisaa ma jirto waad ogtiin harka ininka samaystay oo tashay oo isku xidhxidhay ininka samaystay hadduu Ilaahay igu guuleeyo waxaan rajaynayaa hooyo bilaa hadhay halka fadhiisan mayso waxaan inii samayn doonaa hadh isku siman oo hoos gashaan waxaan ogahay qof kasta oo deegaanka noqda dadkiisa wax uu qaban karaa laakiin isaga wax qabsado gaarba wax u qabsadaa anu ma rajaynaya inaan wax qabsado inaan hooyooyinka dayacan wax u qabtaan jecelahay waad ogtiin meeshan lacag baad ka bixisaan xashiishka dad baa inaga xaadha oromay inaga xaadha dawladda hoose waxay nagu soo celisaa ma jirto Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan wax nagu soo celiyo noqono wax inii qabtaa dadkiina maanta halka wala fadhiya dadka Boorame xaragoonaya ininka koriyay xawaashka erbad ku korisay ku kasto madaxa hooya wax ka dhigtay inuu hooyo xasuustana wax meesha taala
geesta kale musharax axmed aadan daahir oo gudajiray oo liis ayaa waxa uu booqday xafiiska xaafadda Hayaabe halkaasoo si badan ugu soo dhaweeyeen taageerayaasha ku leeyahay xaafadda Hayaabe iyaguna sheegay in cod iyo taageeraba la garab taagan yihiin musharax axmed aadan daahir oo u taagan golaha deegaanka Boorama astaanta codintiisu ay tahay 101 kaloo ka dooranaa sidaan hore uga soo wada hadalnay inaad jidadkaasi marka magaalada maayir ka noqoto dariiqa koobaad wax ka qabanayso inuu noqdo dad maanta waxa way dariiqa aad noo aragto malcaamadda inaad maanta noo aragto halkii masaajidka lagu talagalay noo iibsano diyaara iyada lafteeda inaad noo aragto waxa weeye marka xaafaddu markay ku yeelato golaha deegaanka iyo degmada Boorama markay xildhibaan ay doorato ku yeelato waxay helaysaa mustaqbalkii ka maqnaay oo dhan bay helaysaa marka waxa weeye adiga waxa kugu bishaareynaa inaad xildhibaan noqoto kaliya ma waxaan rabnaa inaad noqoto maayirka degmada Boorama marka musharaxa maanta aan wadano waxaan doonaynaa kii muwaadinka noqonaya ee dalka iyaga iyo dadka iyaga iyo wadanka iyaga waliba barta aan degana wax noo qaban lahaa insha Allah haduu noo soo baxo isaga noo ballan qaaday inuu wax noo qabto inuu baahideed meesha taalana arkaya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu soo baxo ugu dambeyntii waxa ka hadlay taageerayaasha isugu soo baxay xafiiska uu ku leeyahay xaafadda Hayaabe ee magaalada Boorama musharax axmed aadan daahir waxaan uu yiri oo codkiina aad si fiican igu codaysaan 31 May hadduu la yiraahdo oo sanduuqa xaafadda Hayaabe laga arko codka waxa inii ballan qaadaya waxa codkiinu inii gooyay inaan nii qabto oo ilaahayna igu guuleeyo dawladda hoose wax inaga soo noqda ma jirto cashuurteeduna wayni soo gaadhay oo xaafad walba cashuurta waa laga qaadaa waxa allaale wax lagu soo celiyaa ma jirto ama dad baa ku wax ku qabsada daara ka dhista anigu shakhsi ahaan ma rajaynayo inaan wax ka qabsado cashuurta yar ee ummadda masaakiinta laga qaadayo wallahi xaasha ma rajaynayo si kastaba ahaatee musharax axmed aadan daahir u taagan golaha deegaanka Boorama ayaa maanta wajiciisa ku bilaabay oo liisa doorashada waxaan uu noqonayaa musharaxii ugu horeeyay ee u kurgala xaaladda ay ku sugayeen hooyooyinka ku ganacsada Sirmada Axmed Gure ee magaalada Boorama taasoo ay tahay shaqadinta badan looga baahan yahay inay qabtaan xildhibaanada loo soo doorto golayaasha deegaanka Mustafa Caraale RTV Boorama